ورحمة الله وبركاته سوري وهذا علماء حرجين يا أدي أدلو في عيهاي waxaaynu soo dhameynay afar muxaadaro ayaynu soo dhameynay haddii la xasuusto muxaadaro walbaaba aynu ka dhignay hal video muxaadarada ugu horeysa waxaynu soo qaadanay wax loo yaqaano course introduction muxaadarada waxaynu soo qaadanay wax loo yaqaano mission to variation muxaadaradii saddexaad waxaynu soo qaadanay data visualization muxaadaradii afraad ee tani ka horeysa waxaynu soo qaadanay probability marka probability-ga waxaynu ka soo qaadanay muxuu yahay conceptan probability waxaan ku sheegnay inaynu ogaano shay intuu dhici karayo yacni chance of think ama wax loo yaqaano likelihood of the shay intuu dhici karayo inaynu ogaano ayaa loo yaqaana probability waxaan soo calculate gareynay simple probability oo aan excel gacanta kaga shaqeyn challenge number hebel intee la dhuudaada jeer uu ka dhici karaya challenge number 2 oo kale 1 divided by 6 oo kale conditional probability man soo qaadana waa probability if shay leeyahay ku xiran shay kale marka tusaale waxa lagu yiri number 8 oo kale goormeen heli kareyna oo marka laba laadhu marka aad haystid oo geer conditionalka saddex laadhu afar laadhu waxa sanay kareysa waxaan soo qaaday union probability oo ah goormeen heli kareyna sida ama ku jirto marka union kuwa ama calaamadii la adeegsanay isku geyn bahay in inta soo faanay baan rajeenaya maanta waxaanu qaadan doonaa muxaadaradeeni shanaad ayaynu qaadan doonaa aad iyo aadna u fudud inay koobnaateen insha Allah isku day doono waxaana loo yaqaanaa sad score ayaa loo yaqaanaa waxa loo yaqaanaa sad score ayaa loo yaqaanaa marka aad iyo aad aan isla eegno section ka markaan joogno saddex qodob oo kaliya hoos iman doona muxaadaradeena shanaad waxa loo yaqaanaa in isla faano data distribution maxaa tahay inaan isla faano qodobka labaad data distribution tables noocyada data loo qaybiyo data distribution noocyada loo qaybiyo هذا data laba loo kala qaybin jiray qualitative iyo quantitative laakiin data distribution qaybaheeda isla faano laba nooc way noo soo kala bixi doontaa labada nooc aan rabno sida loo sawiro wax loo yaqaan normal case waxa la baan baran doona marka balayna bilowno horta data distribution seen faano marka waxaan sameyn karayaa aan iska sameeysta meel yaro banaan kulli slides ka aad akhrisan doona oo kulli soo wadaagi doona oo course description ka idan ku dhigaa suurtagal ah saaxiibkay marka meel yaraan iska sameeysto aan wax ku xariiqo layout-ka kaalay halkan qodobka ugu horeeya aan qaadan doono waa maxay in isla faano data distribution data maxay distribution yani kullu waan u kaysiinayaa una data distribution maxaan ku sheegnay data distribution saaxiib wax weeyaan inaanu ka warano xogtaada daadsanaanteeda af Soomaaliya ku celiyo data distribution dad maqashay waa daadsanaanta xogta maxaan ka wadaa aan ku sheego imtixaan baynu qaadnay saaxiibkayo imtixaanka aynu qaadnay ardaydii waxaad ka soo qaaday imtixaankeena waxa lagu baasay 50 ayaa lagu baasay 5 arday baa galaaskiina fadhiyay ardayba wuxuu keenay 45 ardayba wuxuu keenay 49 ardayba wuxuu keenay 50 arday kale wuxuu keenay 50 arday kale wuxuu keenay 50 markaan imka imtixaanka aan hayno horta waa data laakiin markaan ka warrameyno data distribution ka noocan ah waxaan leenahay xogteenu waxa ay u daadsan tahay inay u badan tahay ardaydu sareynta miyaanayde la ardaydu shantii ardayba inaad artimo 45 baa ugu yar macnaheedu waxa leeyahay marka data distribution ka xogtani waxa ay u badan tahay ama ay u daadsan tahay dhanka sareynta that is called data distribution واضح مثلا another example waxaad ka soo qaadaa isla imtixaan kale aanu qaadnay arday eber keenay arday kale eber keenay arday kale eber keenay laba arday midna 10 keenay midna 12 keenay imtixaankana waxa la yiraahdaa data distribution laakiin imtixaankana ku baday dhanka dhicitaanka soo dad waxa la yiraahdaa data distribution wuxuu baday dhanka yaraa yani dhanka dhicitaan ku baday imtixaan kale aanu qaadnay arday baa 30 keenay arday baa 35 keenay arday baa 25 keenay arday baa 40 xiray arday baa 39 keenay imtixaankana maxaan leenahay arday dhexda u badan tahay Soomaaliyeed waxaan leenahay ardayda imtixaankana waxa u badan tahay dhankii dhexe ayay u badan tahay marka data distribution ka saddex nooc buu qaybsamaa in datadaadu ay u badan tahay dhanka dhexe oo nooca magac baa loo yaqaanaa oo in baran doona normal data distribution baa loo yaqaanaa normal data distribution waana marka xogtaadu ay datadaadu dhanka dhexda u badan tahay yani medianka ay meanka ay u dhowdahay markana kalena waxa loo yaqaanaa non normal data distribution waayo ardayda dhanka dhicitaanka ayuu badan tahay non normal
markan kala arday dhankii baastaanka aad ugu badatayna waa non normal marka labada xaaladoodba waa non normal labada xaaladoodba waa non normal markan oo kaliya tahay normal waa marka ardaydu ay dhicitaankaana u badnayn baastaankana u badnayn ee dhexda u badantay that is called taas loo yaqaan normal data distribution laakiin saddexdu horta data distribution weeyaan inaan isla fahanaa rajeynaya marka data distribution ka sabtiga inaan isla fahanaa rajeynaya waxaanu ka warramaynaa xogtaada daadsanaanteeda tusaale kale aad ila fahantahay bal waxaad ila sawirataa data distribution ila fahantay magaalada Hargeysa waxay leedahay 9 degmay leedahay waxa ku nool 1.4 milyan baa ku nool Soomaa haddii maanta kale waqtigii la joogaa doorashada haddii ka warrama sida caadiga waxa aynu ku tala galeynaa degmo walba inuu number inay 9ka degmaba numberaan isku dhaw ay ka codayaan Soomaa وتسال دقمة 400 كعودين دقمة كلا 500 يعني سيم ريم شيء اسكدو صح ذاته لكن كورم هذي دقمو أينو لين هاي مركا هذي وان بود لما نوحيد وضع السنادان لما دقمو يكون أنت كعودين يا كلا كعودين يا ونورمال داتا ديستريبيوشن بين لين نورمال داتا ديستريبيوشن لكن كورم هذي دقمة كل 1 مليون كعودين دقمو ده كلا صح هذا نفور أفرتك وكنا صح هذا أيو كعودين waxa leena waa non normal way waxba khaldan bay leen in hal degmo kaliya inta soo qof ka codayaan 1 milyan ma suurtagal ma marka waxaan leenahay say wax isla faano eriga loo yaqaan data distribution ee la fahanti marjina data distribution wuxuu ka waramaa inaynu baranno xogtaada say u daadsan tahay data distribution waa daadsanaanta xogta inta xogtaadu ay kala fidsan tahay ay waxaan jeedaa kala fidsantay inta ay kala daadsan tahay ay kala taalo ayaa loo yaqaan marka kala daadsanaantada laba aynu qaybinay mar ay saxsan tahay daatadaadu qaybsanaanteeda oo loo yaqaan normal data distribution tusaale imtixaanka aynu qaadno kala ardaydu dhanka dhicitaanka oo mana badna dhanka baastaanka oo ma badna waxay ardaydu badan tahay dhanka ishay dhanka dhexe ee ah tusaale dhowr iyo 30 dhowr iyo 40 hadii imtixaanka 100 la qaadanayo dhanka 60 dhanka 70 ardaydu ku badan nooca wax loo yaqaan normal data distribution non normal ku waa laba midkood laba jeer buu non normal data noqotaa non normal data distribution waa marka shaygaagu dhanka u badan yahay dhanka yar oo iyadana loo yaqaano dhanka yar ma kala jooga negative baa loo yaqaan negative skewed waa dhanka marka ardaydu dhanka dhicitaanka ay u badan tahay negative skewed baa loo yaqaan marka ardaydu dhanka baastaanka u badan tahay konton iyo dhamaan arday wada xidhayaan noocana iyadana waa non normal wax loo yaqaan positive skewed ama positive non normal data distribution in inta ay fahantii barjeeniyo tusaale waxa lagu fahmayaa halkan ina keena marka waxa isla jeeniyo horta inaad saa aad isku fahanay haddaba sideen ku kala garan karaya imtixaan qaaday inuu normal yahay iyo inuu yahay non normal iyo noocu yahay saynu kala ogaano waxa inoo sheegaya waxaan loo yaqaano halkan inoo kaalay waxa inoo sheegay waxa loo yaqaano normal curve shaygaas ay naga caawinaya normal curve marka aynu waxaanu qaadanay data distribution maxay tahay waxaan ku sheegnay daadsanaanta xogtaadu laba nooc bay u kala qaybsantaa nooc loo yaqaan normal iyo qayb loo yaqaan non normal normalku waa markay xogtaadu daadsanaanteedu ay saxsan tahay non normal marka waxa ka khaldan yihiin ama dhankii ardaydu dhicitaanka u badan tahay ama dhankii baastaanka sax haddaba inaan xog aan haysano aan imtixaan aan qaadna garanno normal data distribution ba soo non normal shayga aan ku garanayno ayaa loo yaqaanaa normal curve marka normal curve keenu marka aynu xogteeni sawirno muuqaal noocaas oo kale sida jeliska oo kale hadda yeelato mise hadaad aad moodid inay dhan ka rarantay salaamka saasoo kala ama saasoo kala tahay yani saddexda muuqaal ay midkood bay yeelan doontaa aan aad ku xogteedina ma muuqaal ka yeelato oo sida jeliska oo kale labada cidhif ee hoose iska leekaadaan ama inaad moodin sidoo kale dheerto waxa moodina buuro kale aad filanayso oo kale iyana buur ka soo daadagis hadii baalkeenu sida jeliska isku leekaado normal data distribution mu ka matalay waana xog saxsan qaybsanaanteedu ama xanta daadsanaanteedu ay saxsan tahay hadii ay buur sidaas kale moodina la korayna macnaheedu waxa ka dhiganta ardaydu waxa u badan tahay dhankii baastaanka oo nooc loo yaqaan positive skewed oo non normal hadaynu sida aragnana ina buur laga soo daadagayna waa non normal gaaraan nooc loo yaqaan negative skewed waadax mate bal practicalka aynu furno practicalka aynu furna saaxiibkayo hadii practicalka aad la faantid way 10kii dhalaa waad faantay bay ka dhiganta excel ka aynu soo furnay soo ma aragtaan excel ki markii aynu soo furnay arday baan imtixaan ka qaadanaa oo fiirsada arday baan
imtixaan ka qaadana waxaan rabnaa imtixaanka aynu ka qaadnay inaynu ogaano ma normal data distribution ba soo waa non normal hadduu non normal yahay ma positive ba oo ardaydu waxay u badan tahay dhanka baasitaanka mise waa negative oo waxay macnaheedu ardayda dhanka dhicitaanka u badanta marka haddii normal inoo soo baxdo macnaheedu waxay ka dhigan tahay ardaydu miinkiiba u dhowday darajadoodu taas macnaheedu tahay imtixaankaasi u saxsay haddii ardayda dhanka dhicitaanka u badato macnaheedu ardayda miinkiiba ka fogyiin darajadoodu taas macnaheedu tahay ardaydu waxba aanay soo qaybin ama imtixaanka waxba ka khaldan oo ardaydii macalinka laga yahay maadadii inuu ardayda ka soo qaado waxyaalo aan u sheegin haddii dhanka baasitaanka u batana macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa non normal data distribution oo macnaheedu tahay ardaydu malaa imtixaanka ba heshay malaa macalinka ba imtixaan fudud aad uga soo diyay yacni calaamad su-aal baa ka taagan labada xaaladood ee non normal data distribution laakiin marka normal data distribution ku soo baxdo imtixaanka guud saxsan ka dhiganta marka tusaale waxaan haysanaa 10 arday oo imtixaan ka qaadayna tusaale arday baa wuxuu inoo keenay 25 arday kale wuxuu keenay 30 shan arday oo kaliya bay naga soo qaada arday kalena wuxuu keenay 45 andho arday kalena wuxuu keenay 42 arday kalena wuxuu keenay 39 yacni imtixaanka hadda aragtid shanta arday keeneen halka adan dusha ka sii qiyaaso waa normal data distribution waayo ardaydu waxa ay ku dhowdahay miinkaaga waa dhowr iyo 20 ma laga yaabaa dhowr iyo 30 marka imtixaanka waa imtixaan saxsan muuqaal ahaan waxaan rajayn doonaa marka aan sawirno in muuqaalkeedu soo baxo oo labada cidhif inay iska leekaadaan oo normal data distribution ka tarjumaya markaasaan u sawiro waxaan u baahanahay 3 qodob baan u baahnaanaya qodobka ugu horeeya inaan helo xogta miinkeedii sidoo kale inaan helo xogta standard deviation-keedii after that waxaan heli doonaa cumulative probability wax loo yaqaan saddexda shay baan raadinaya ugu hore waxaan raadinayaa mean score-ka miinkiisa baan raadinayaa marka ku xigtana waxaan raadinayaa standard deviation score-ki baan raadinayaa soo laba maaha mar saddexaadka waxaan raadinayaa wax loo yaqaano cumulative probability halkaasaan ku qoray markaasaga cumulative probability score baan raadinaya probability score saddexdaas shay markaan ogaado ayaan normal curve ka sawirayaa taasoo ay cadeynaysa inaan ogaado dad doona kan yari gal garay si aad u xuquuq qorxotaa okay kana midab baan iska siin doonaa kana midab yani si iska qorxoto verifad yani markaan saddexdaas shay soo ogaado ayaan ogaan karaa xogteeda normal data distribution baa soo normal marka miinka maxaan ku helay waa la ila xasuustaa equal baan qori jiray average baan qori jiray dadina waxaan soo select gareyn jiray dhammaan ardayda imtixaanka gashay aan ku celiyo waxaan ka tagay miyaa qaab qoysima may furan jiray waxaan soo select gareyn jiray dhammaan ardayda imtixaanka gashay darajadooda dadina waan soo xiri jiray miinki waxa la sheegay 36 imika haddana ka sii qiyaaso ardayda imtixaankooda waa normal data distribution weesh ardayda darajadoodii iyo miinki aad u isku dhow yahay taas macnaheedu tahay ardaydu waa normal data distribution laakiin waxaan rabnaa inagu aan sawiraan ku aragno standard deviation-ki baa naga dhiman oo inoo sheegaya numberanta halka inoo yaala intay u jiraan miinkeena ayaa loo yaqaanaa standard deviation isagana maxaan ku heli jirnay equal baynu qori jirnay waxaanu qori jirnay stdef marka maadaama .b baan dooranaa mise .s haddii waxaan population ku yahay .b dooro hadduu sample ka yahay .s inaga waxaan ka soo qaadan inuu yahay population waxan shanta arday galaaska kaliya digto ka soo qaad waan soo select gareey isagana waan iska soo waxa lagu yiri miinka waxa u jiraan 7 waa number caadi ah marka labadaas soo ogaaday waxa ay dhiman cumulative probability score keena soo yaacni number walaalkan yaala intee probability intee leeg buu ku leeyahay score-ka markaas aan u ogaaday isagana waxaan qorayaa equal dadina waxaan qorayaa ereyga loo yaqaan normal.list function-kaas aan adeegsanay function-kaas waa function-kayga mas'uul ah inaan ogaado number-kan 25 ka oo kala intee ayuu ku leeyahay probability intee leeg buu ku leeyahay number-anta kale marka waxaan dooran doonaa ka ugu horeeya oo ah 25 ka ayaan dooran doonaa oo ah observation ka ugu horeeya ama score ka ugu horeeya hakad baan ku xigsiinaya waxaan ku xigsiin doonaa saaxiibkayga miinka hakad baan dhihi doonaa waxaan ku xigsiin doonaa standard deviation-ka hakad baan dhihi doonaa waxaan ku xigsiin doonaa ereyga loo yaqaan force afartaas shay baan iska daba geynaya enter baan dhihi maxaan dhihi doonaa enter kugu celiya aan ku celiyo maxaan qoray equal baan qoray normal.list baan qoray dadina waxaan soo select gareeyay observation-kii ugu horeeyay ama score-kii ugu horeeyay hakad baan dhahay miinkii baan soo doortay hakad baan dhahay standard deviation-kii baan soo doortay hakad baan dhahay false baan dhahay afartaas shay markaan ogaado ayaan ogaanaya number-kan 25-kii
percentage intee leeg baa ayuu ku leeyahay another scorada kale. marka kuwa kalena sidaas ayaan u wadaya, kuwa kalena sidaas ayaan u wadaya. marka mid walba goonidiisa u qoraya si aad ila fahantaan, mid walba agtiis waxaan imanayaa scoreka labaad equal baan qorayaa, equal ma qoray. markaan equal qoro waxaan qorayaa functionkii loo yaqaanay dhammaan. marka imtixaanaadkaaga oo dhan intaas ku qoraysaa normal listi. waxaad soo dooran doontaa imtixaankaagii labaad, scorekaagii labaad hakad baad dhihi, meanki baad soo dooran hakad baad dhihi, standard deviationki baad soo dooran hakad baad dhihi, policy baad ku xigsiin doontaa. intaas oo kaliya baa ka xigta. kaana wuxuu ku leeyahay 3% halka kii 1% ku leeyahay. 45 kuna waa aan raadina equal baan qori, normal list baad qori. waxaan soo dooran doonaa scoreka saddexaad hakad baan dhihi, meankan ku xigsiin hakad baan dhihi, standard deviationka raacin hakad baan dhihi, policy baan ugu dambaysiinaya mar walba waa inta. kana sanu eegaani waa equal normal list baan dhihi. markaan idhaahdo 42 gan soo dooran doonaa kii afaraada, meankan soo dooran hakad baan dhihi, standard deviationka soo dooran hakad baan dhihi, policy baan ku xigsiinaya. isagina waa ka oo limit kaliya dhiman. equal baan qori, normal baan qoraya, normal list baan qoraya, 39 kan soo dooranaya hakad baan dhihi, daya meankan soo dooranaya hakad baan dhihi, standard deviation hakad baan dhihi, policy baan ugu dambaysiinaya. sidaas ayaan ku dhameeyay inaan ogaado number walba halkan yaala cumulative scorekiisii halkan minimum. markaan inta aan soo helo oo aan ogaado imtixaanka halkan yaala scoreka halkan yaala meankiisa iyo standard deviationka iyo cumulative probability-ga, after that ayaan iminka sawirayaa normal curve-kayga. way normal curve-ka ma dhow kala go'aaminaya decision-ka qaadanaya waxaan yahay normal distribution iyo non normal distribution yahay. marka intaa dhameeyo waxaan soo select gareynayaa dhammaan imtixaanaadkaygii labadaas sector baan select gareynayaa anoo ka bilaabaya imtixaanka qofka ugu horeeya darajadu keenay ilaa laga gaadhayo barta ugu dambaysa cumulative. yani intii hore ma select gareey kuma jiraan magacyada ay siiyo scoreka cumulative waxaas kuma jiraan. only intaas aan ku celiyo 25 kan ka soo bilaabaya ilaa ay halkaas gaaray. deetna waxaan ku xigsiinayaa insert baan dhahayaa. deetna waxaan ku xigsiinayaa recommended chartska. halkaas waxa laga dooray soo ma aragtaan sawir baa halka laga door, sawirkii baan dooran doonaa. sawirkii baa saa laga door bas sawirkan eeganu yahay normal data distribution iyo in kale. marka dotska ma isku xidhi doona aan isku xidho balan fiirsana. markaan isku xidhno dadka ugu horeysa halkaas uu ka bilaabaya, halkaas uu gaaraya, halkaas uu gaaraya, halkaas uu gaaraya, halkaas uu gaaraya sidaas. iminka saa ka inaga soo muuqata waxa weey waa non normal data distribution. waayo labadaadii sector labadaada boonti ugu hooseeya iskuma dhigmaan. Soomaalitan iskuma dhigmaan. yani u fiirso aad iyo aad ugu fiirso labadani u fiirso aad iyo aad badan waxay ahayd in halka dadka kale ku yaalaan si labadaasi sidaas kula xidhmaan. soo garatay ma marka maxay noo soo baxay waxaan iska masaxo inuu tahay non normal. xogtani waa non macnaheedu waxa weeyaan non normal weeye. macnaheedaasi fasirno qalinka ay soo qaad. macnaheedu imka u fiirsada maadaama aad moodi mar wala kor loo si kacayna badanayso oo yani sida buro kale la kordhayo kale. macnaheedu waxa weeyaan ardaydu waxay u badanta dhaki baastanka. wada arkay afar ardayna baa imtixaankii ka baasay de ka 25 kana wax ku taagan yahay median-kiiba. macnaheedu waxa weeyaan waa positive skew. macnaheedu tahay ardaydu dhanka baastanka ayay u badantay. taasoo macnaheedu tahay imtixaanka ardaydu aad bay u soo dadaashay, macallinkuna imtixaanka aad buu jilciyay ka dhigantay. waa normal waa non normal. soo garateen maaha. bal ka warrama haddii imka imtixaanaadkii qaar aan ardayda aynu dhicsiino ka warrama. marka kana iska dhil garayo bal ka warrama imtixaanka ardayda rabay inaan dhicsiyo ardaygaasi 0 buu keenay, kan kalena wuxuu keenay aan dhaho 0, kan kalena wuxuu keenay hal ardaygaas oo kaliya inaga badbaaday aan dhaho ardaygaasina 4 buu keenay. imikana waxa la odhan doonaa dhicitaanka ardayda aad u yar dhicitaankooda ayaa aad u badan. markaas aan soo sawiro waan soo select gareyn doona. markaan soo select gareeyo insertiga iman doona, recommended chartska iman doona. markaas aan idhaahdo bal u fiirsada kii hore cagsigii weeyaan. bal u fiirsada dotskan soo xulay dotska markaan soo xulay waa ka maxaad moodaa inaan buur ka soo daadagayo. macnaheedu waxay tahay ardayda ka dhicitaanka u badan waa negative skew waana normal data distribution. yani daadsanaantani caadi ma aha, waxba khaldan. imtixaankiiba aad u adkaa, imtixaankii ardaydu aad uma soo qaybin, ardayda saaqidina sababahaas loo raacinaya. bal ka warrama ardayda haddaan dhanka dhicitaanka aynu ka ilaalino, dhanka baastaankana aynu ka ilaalino, ardayda meel dhexa aynu badino. tusaale 31ka
درجة iska fiican dee 39ka 37ka 40ga يعني waa arday iska xarifin aadna maaha saaqidin aadna maaha waa ardayda waxay u badan tahay dhankii miinka ayay u soo dhowdahay ay ka dhigantay marka bal sagana saan sawiro dhamaan waan soo select gareyn doonaa waxaan tagi doonaa insertiga waxaan ima doonaa recommended chartska bas sawirka imkay sawir maan eego aan isku soo xidho normal buu dhawiyay 99% u fiirsada imtixaankii markaan imka darajada ardayda isku soo xidhno waa normal data waa sida jeliska oo kale inta yar waa iska caadi waa loo dul qaadan karaya waa normal data distribution weeyaan oo macnaheedu tahay ardayda imtixaankuna iska dhaxdhaxaad buu ahaa ardayduna soo qaybitaankooda iska dhaxdhaxaad buu ahaa yacni wixii oo dhan baa dhaxdhaxaad oo iska normal ah marka halka waxaan rajeynayaa inaanu isla fahnay tobigii saddexaad halka ku dhameynay oo aanu qaadanay data distribution concept inaan ka qaadan oo aan ka waranay data distribution waa qidaadsanaanta xogta inaanu baranay data distribution types noocyada datadaada distribution marka laga waramayo normal iyo non normal normalku waa marka xogtaadu ay miinka ku dhowdahay standard deviation-kaaguna aad u yar yahay non normal datana waa marka xogtaadu ay miinka aad uga fog tahay ama aad uga yartahay ama aad uga badan tahay waxaanu qaadanay wax loo yaqaan normal curve marka normal curve waa sawirkii imka inoo soo baxay sawirka inoo soo baxay ayaa go'aaminaya xogtaadu ma normal data distribution ba amse waa non normal haddana normal time ma positive skew ba amse waa negative skew harjeeni aad loo fahmay section keeni saddexaad ee shanaad intaan ku kulmi doona section keena lixaad ugu dambeeyay soo qaadan doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi